السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta fiidiyogan gaaban waxaynu ku soo qaadan doonaa 5 qaab oo ka caawin kara inaad gabadh kasta soo jiidato ama qofka aad jeceshahay aad soo jiidato. 5tan astaamood haddii aad si dhab ah u isticmaasho ama aad u adeegsato qofka aad jeceshahay aad ayay kugu soo dhawaan doontaa. insha Allah waxaan rajaynayaa inaad noqoto qof ku guuleysta qofka uu jecel yahay. waxaan ka hafeefanayaa dad muuqaalkan intay qaataan si qaldan u adeegsada ugana faa'iideysta dumarka qalbiyadooda jilicsan. waxaan rajaynayaa inay ku xidhan dad iyaga ugu caqliga badan leh marka loo eego dadka kale, waayo qof walba waxa uu kugu xidhan yahay waxay tahay waxaad soo gudbinayso. mar walba waxaan jecelahay inaan soo gudbiyo waxaan u arko inay muhiim yihiin ama aan jecelahay waxyaabaha dhalinyartu xiiseeyaan mar walba inaan soo gudbiyo. haddii aan ku soo dhawaano qodobka koobaad ee ka caawin kara inaad soo jiidato qofka aad nolosha ka leedahay ama aad rajaynayso inaad nolol la wadaagto. qodobka koobaad waxa weeyaan inaad qofkaasi had iyo jeer qodobka koobaad ee ka caawin kara inaad soo jiidato qofka aad nolosha la wadaagaysid waxay tahay in had iyo jeer aw muuqaalkaagu ku badato. daraasad la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday markasta oo qofku is aragiinu badan yahay waa markasta oo soo jiidashadiinu badan tahay. fadlan waxaad ku dadaashaa inaad markasta ka ag muuqato qofka aad jeceshahay ama aad danaynayso, waayo mar walba waxa uu jecel yahay qof kasta inuu ag joogo qofka jecel. qodobka labaad haddaynu ku soo dhawaano markasta oo aad la kulanto isticmaal qofkaasi magaciisa. ha isticmaalin hebla, balse waxaad isticmaashaa magaciisa rasmiga ah ee hooyadii iyo aabihii ula baxeen. markaad isticmaasho waxa uu ka caawinayaa in aad ku guuleysato wax kasta oo aad rajaynaysay. waxaan rajaynayaa inaad ku guuleysan doonto. qodobka saddexaad haddaynu ku soo dhawaano surprise u sameey qofkaasi waxaanu filayn waa inaad u samaysaa, waayo waxa uu og tahay qof walba inuu jecel yahay waxyaabaha kadiska ama uusan ogeyn inuu jecel yahay, balse dumarku aad ay uga sii xag jiraan ragga lamid ma aha. waxa surprise-ka aad ay u jecel yihiin, balse waxaan ku leeyahay saaxiib aad ugu dadaal, waayo gabadh kasta waxay jeceshahay inaad u samayso surprise. qodobka afraad waxa uu yahay haddii aad leedihiin asxaab isku mid ah aad ayaad u nasiib badan tahay ayaan ku leeyahay saaxiib. asxaabtiinu hadday hal asxaabtiin ama asxaabta adiga taqaana iyadana ay taqaano aad ayaad u nasiib badan tahay. saaxiibada ayaa la heshiinaysaa waxa aad leedahay aad iiga hor hadla markasta oo aad joogtaan adigoo shirka ahaan kula galaya. tani ma aha inaan qof khiyaameynayno, balse waxa ay tahay inaad ku soo jiidato oo kaliya qofka aad adigu jeceshahay. qodobkeena u dambeeya waxa uu yahay noqo qofka ugu dambeeya ee habeenkii hadalkiisa ugu dambeeya ay ku seexato gabadhaasi ama qofka aad doonayso inaad nolol la wadaagto. ha noqoto qofka ugu dambeeya ee aad la hadasho gabadhaasi ama qofka aad targetka ka dhiganayso. marka aad noqoto qofka ugu dambeeya ee ay la hadasho waxa aad tahay qofka ugu nasiibka badan leh, waayo qof walba qofka ugu dambeeya aad ayuu uga fikiraa. sababta ayaa waxa ka caawinaysa inuu qofku aad kuugu soo xidhmo. waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu ku anfacay. intaan ku kulmi doono mid kan la mid ah waxaan igaga tagayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.